السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa kanaalka iftiinka magacayguna waa diin xuseen shacab kusoo dhawaada muuqaalkina maanta saaxiibayaal waxaynu ka sii bilaabi doonaa sheekada qaybteeda xigta haddaba ka bogshaabon muuqaalkani saaxiibayaal saca wuxuu noqon karaa wax walba ka hor istaagi kara horumarka nolosha oo wax dib ku dhiga oo ku qalqalgeliya markaad dalbato inaad go'aan adag samayso waana waxaad ka dhigto cudurdaar kolkaad gaari weysay yoolkaaga maadaama aan sacigii dilay maxaa xiga haddaba muddo 2 isbuuc ayaan magaalada dhex wareegayay si aan u helo sac ka duwan kii hore nasiib wanaag waxaa jirtay fursad shaqo ah oo ka banaaneed shirkadda isgaarsiinta Somtel waan ka wardoonay anigoonan qofna ka garanaynin markii aan isku day inaan gudaha u galo shirkadda ayaa waxa iga hor istaagay waardiyihii albaabka wuxuu weydiiyey maxaad doonaysaa waxaan u sheegay inaan shaqadoon ahay wuxuu igu yiri yaad ka taqaanaa shirkadda waxaan ku dhahay qofna wuxuu yiri dib u laabo haddaba inkastoo aysan ii soo gelinin inaan maalintaasi gudaha u galo haddana ma quusan ismana dhiibin maalintii labaad ayaan dib u soo laabtay wuxuu weydiiyey isla su'aashii hore waxaan ugu jawaabay waxaan ahay shaqadoon wuxuu igu yiri wax yar sug durbadiiba wuxuu wacay xafiiska shaqada iyo shaqaalaha waxyar kadib waxaan gudaha u galay shirkadda dukumeentiyadeedii ayaan ku wareejiyey xafiiska shaqada iyo shaqaalaha nasiib wanaag 4 maalmood markii ay ka soo wareegatay ayaa waxa i soo wacay qof ka mid ah xafiiska shaqada iyo shaqaalaha wuxuu ii sheegay inaan bari isku soo diyaariyo waraysi waan ku guuleystay waraysigeygii waxaan ka shaqo bilaabay waaxda ganacsiga gaar ahaan qaybteeda soo dhaweynta macaamiilka la soco sheekada qaybteeda xigta waadna ku mahadsan tahay daawashadaada saaxiib